السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولالكين عبد القني أحمد هل كاد نقل سعطان وعبد القني أحمد channel كسو هذا موضوع عصب maanta waxaan ka hadli doonaa shanta dal ee ugu baasaboorka xooggan ama ugu fiican Afrika marka loo eego inta dal ee fiisa la'aan lagu gali karo baasaboorka haddii aan guda galno mowduuceena maanta shanta dal ee ugu baasaboorka xooggan qaaradda Afrika waxaan ku bilaabi doonaa dalka shanaad ilaa aan ka gaarno dalka koowaad ee ugu baasaboorka xooggan qaaradda Afrika kaalinta shanaad baasaboorka shanaad ee ugu fiican qaaradda Afrika kuna jira kaalinta shanaad waa dalka Lesotho muwaadiniinta dalka Lesotho waxa ay fiisa la'aan gali karaan 46 dal halka 31 dal fiisaha laga sii doono garoonka ama marka ay ka soo dagaan airportka halka 120 dal looga baahan yahay inay fiisa sii dalbadaan kaalinta afraad baasaboorka afraad ee ugu xooggan qaaradda Afrika waa kan Botswana muwaadiniinta dalka Botswana waxa ay fiisa la'aan gali karaan 49 dal halka 31 dal fiisaha laga sii doono garoonka halka 118 dal looga baahan yahay inay fiisa sii dalbadaan ka hor safarkooda kaalinta saddexaad ama baasaboorka saddexaad ee ugu fiican qaaradda Afrika waa kan South Africa muwaadiniinta dalka South Africa waxay fiisa la'aan gali karaan 63 dal halka 36 dal fiisaha laga sii doono garoonka halka 99 dal looga baahan yahay inay fiisaha sii dalbadaan ka hor safarkooda kaalinta labaad ama baasaboorka labaad ee ugu fiican qaaradda Afrika waa kan Mauritius muwaadiniinta dalka Mauritius waxay fiisa la'aan ku gali karaan baasaboorkooda 100 dal halka 33 dal fiisaha laga sii doono garoonka ama airportka halka 65 dal looga baahan yahay inay fiisa sii dalbadaan ka hor safarkooda kaalinta koowaad baasaboorka koowaad ee ugu xooggan qaaradda Afrika kuna jira kaalinta koowaad ee ah midka ugu fiican adduunkana kaga jira meelo fiican waa baasaboorka dalka Seychelles ama jasiiradda Seychelles muwaadiniinta dalka Seychelles waxay fiisa la'aan gali karaan 104 dal halka 33 dal laga sii doono fiisaha garoonka halka 61 dal looga baahan yahay inay fiisa sii dalbadaan mowduucana maanta intaas ayuu ku ekaa waa ku mahadsantahay daawashadaada muuqaalkan si aad ula socoto muuqaalada aan soo galino subscribe saar channelka Cabdiqani Axmed haddii aad ka heshay macluumaadka aan soo gudbino like dheh muuqaalka siina share garee sidoo kale gambalaalka taabo ama riix si muuqaal walba aad ula socoto wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh